Ka war haddii aad ogaato in dhulka aad hadda dul marayso ama aad dul socoto uu qarinayo sire aad u madow, sire aan ahayn mid qadiimi ah oo keliya, balse lagu aasay dhiig, khiyaamo iyo naxariis la'aan. Ma rumaysan kartaa in laba dumar ah oo dadka hortooda u ekaa kuwa caadiya ay noqdeen dilayaal taxane ah, isla markaana ay gurigooda ku dhex dileen in ka badan 17 haweena, kadibna ay dhulka ku aaseen isla markaana ku dul noolaayeen? Maanta waxaan dib ugu laabanaynaa wakhtigii adkaa ee ka dambeeyey dagaalkii koowaad ee adduunka. Waxaan u safraynaa magaalada Alexandria, halkaas oo saboolnimo, cabsi, jahwareer iyo deganaansho la'aan ay ku noqdeen nolol maalmeedkooda. Waa halka ay ka bilaabantay qisada Raya iyo Sakina. Waa laba walaalo ah oo magacyadoodu weligood ku qornaan doonaan taariikhda dembiyada, isla markaasna ay kaga sii qornaan doonaan bogagga ugu naxariista daran. Fadhiiso, ha dhaqaaqin, sababtoo ah qisadan qaybteeda ugu madow ayaa weli soo socota. Xaaladda magaalada iyo bilowga qisada. Sannadihii 1919 ilaa 1920, Alexandria waxay ahayd magaalo buuq badan. Dad badan ayaa ku soo qulqulayay iyagoo raadinaya nolol, laakiin dhab ahaantii shaqooyinku way yaacayaan, saboolnimadu way baahsan, dad badan ayaa la waayay, isla markaasna meel ay jaan iyo cirib dhigeen la garan waayey. Waxa kale oo jirtay kacdoon ka dhan ah United Kingdom oo markaas Masar gacanta ku haysay. Tani waxay abuurtay jawi khaldan. Boolisku waxay ahaayeen qaar mashquulsan, dad aan la ogaan marka ay baaba'ayaan, dembiilayaal si fudud u dhuuman. Raya iyo Sakina waxay ka faa'iidaysteen fursaddan, waxaanay ahaayeen dumar caadi u muuqda oo aan laga shakiyey, la sheekaysan kara qof kasta oo ay arkaan, si fiican u qarin kara wejigooda dhabta ah. Laakiin waxay ahaayeen wax kale oo gebi ahaanba ka duwan waxa kuu muuqda. Shirqoollada iyo qaabka dilalka. Dhibanayaashu ma ahayn qof kasta, waxay si gaara u beegsan jireen haweenka keligood socda, kuwa dahab badan sita, kuwa aan lahayn cid si degdeg ah u raadsan karta. Xeeladahooda. Sakina waxay ahayd maskaxda soo jiidashada. Suuqa ayay u bixi jirtay, waxay la soo sheekaysan jirtay haweenka, lana soo saaxiibi jirtay. Waxay ka dhaadhicin jirtay inay jiraan fursado gaar ah oo ay ku shaqaalaysiin karto. Talooyin jaban. Uunsi dibadda laga keenay, dahab qiimo badan. Marka ay kalsoonidooda hesho, waxay u kaxayn jirtay gudaha guriga. Marka dhibanuhu soo galo, waxaa la siin jiray cabitaan si uu miyirkiisu u daboolmo. Cabitaankaas waxaa lagu dari jiray maandooriye. Waxay si tartiib tartiib ah qofku u lumi jiray miyirkiisii. Intaa kadib, ragga ayaa soo geli jiray. Hasaballa, Fayaad iyo laba nin oo kale. Waxay isticmaali jireen shukumaan qoyan. Waxay ku qaban jireen sanka iyo afka ilaa neeftu ka go'do qofka. Noloshii meydadka dushooda. Tani waa qaybta ugu naxdinta badan. Markii ay dileen, ma aysan bixin meydadkooda, ma aysan tuurin meydadkooda, mana aysan aasin. Waxaase ay ku qariyeen godad ay ka qodeen guriga gudihiisa, qolka jiifka, jikada, mararka qaar sariirta ay ku hurdaan hoostooda. Waxay isticmaali jireen nuurad si ay u baabi'iyaan ufta. Laakiin waxaaba ka sii darmaa. Waxay sii wadan jireen noloshooda. Waxay ku cunayaan dushooda cuntada ta ugu sarraysa. Waxay ku seexan jireen sariirta ka sarraysa. Waxay qoslayeen, kaftamayeen sidii aanay waxba dhicin. Dhulka hoostiisa
17 qof oo noloshoodii la gebagabeeyey ayaa ku duugan ka ganacsiga dahab. Dilka keliya ma ahayn ujeeddadooda, dahabka ayaa ahaa sababta ugu weyn ee ay qofka u dili jireen. Waxay ka sii iibin jireen dahabka dhibanaha dukaamada, waxay u geyn jireen dahablaha si ay heshiis ay la ahaayeen, dharka waxay ka iibin jireen suuqa. Marka la eego dadka kale, waxay u ekaayeen ganacsato yaryar, laakiin dhab ahaantii waxay ahaayeen shabakad aad u aqoon sidii loo fashiliyey. Dembi weliba ma sii socdo weligiis, oo maalin maalmaha ka mid ah ayaa la fashiyaa. Calaamadaha ugu horreeya, deriska ayaa bilaabay inay dareemaan ur aad u daran. Laakiin Sakiina waxay tidhi, waa bulaacadda. Markii ay dadkii aamuseen, markii hore khaladka ugu weyn ee ay galeen waxay ahayd in nin askari uu arkay dharka haweeney la waayey oo ay shidato Sakiina. Shaki ayaa bilaabmay. Gurigii la kiraysanayey, nin ayaa rabay guri. Markuu galay, wuxuu arkay dhul cusub oo laalig ah oo ur xoogli ka sii urayso. Wuxuu wacay boolisti. Wakhtigii baadhista, boolisku markay soo noqdeen, lafihii ugu horreeyey ayay arkeen. Kadib mid kale, kadib mid kale. Ugu dambayn 17 qof oo qolfoofo ayay ka soo saareen. Qisadii qarsoodiga ahaydna ee soo baxday. Xukunkii Extant sanadkii 1921 maxkamaddu waxay noqotay mid taariikhi ah. Markii ugu horreysay, dumar ayaa lagu xukumay dil gudaha dalka Masar. Raya, Sakiina iyo kooxdoodii waxaa lagu xukumay daldalaad. Ereyadii ugu dambeeyey waxaa la sheegay in Sakiina ay tidhi, waxaan dilay 17 qof, waxaanan diyaar u ahay in lay dilo. Gunaanad, qisadan ma aha oo kaliya sheeko cabsile, waa xasuusin in mararka qaar xumaantaadu aysan lahayn muuqaal cad, qof caadiyana uu noqon karo mid aad u khatar badan. Raaqiya iyo Sakiina magacyadoodu waxay weligood ku noolaan doonaan diiwaanka taariikhda dembiyada, laakiin dhibanayaashooda iyagana lama ilaabi doono. Haddii aad jeceshay daawade qisada noocan oo kale ah, fadlan subscribe saar, like iyo share-na noogu dar.